dowladda Soomaaliya oo fariin ka naxeeday AMISOM u dirtay midowga Afrika iyo midowga Yurub taliska AMISOM oo la hoos geynayo taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kala shaandhayn lagu sameynayo kuwa howlgabka iyo kuwa shaqayn kara waa fariin lama filaan ku noqotay Afrikaantii mushaarka beenta ku qaadan jiray magaca qaranka Soomaaliyeed ee sheergareeya warbixinta uu gaarsiiyay dhammaan xubnaha ciidamada qalabka sida oo ay xaqoodii cuneen AMISOM warqada nuqul kamid ah aan helnay ayna ku saxiixan yihiin madaxweyne Farmaajo taliye General Odawa Yusuf Raage iyo taliye Fahad Yaasin Xaaji Daahir ayaa midowga Afrika iyo midowga Yurub oo bixiya lacagaha ku baxa ciidamada AMISOM looga dalbaday inay fuliyaan laba shuruudood oo waaweyn si ay AMISOM Soomaaliya u sii joogto haddaba maxay yihiin shuruudahaasi warbixintan oo ka daawanaysaan Volleyball News ayaan ku iftiimin doonaa xogihii warqadaasi ku qornaa iyo shuruudahaba ee sheergareeya muuqaalka leegta ku booba page-kana follow gareeya si aysan idiin seegin xogahan dhisaya qulubtiina wadaniyiinta Soomaaliyeedna dhiigooda dhaqaajinaya waatahay aan ku bilaabo warqada ay madaxweyne Farmaajo Fahad Yaasin iyo General Odawa Yusuf Raage ku saxiixan yihiin oo loo diray midowga Afrika iyo midowga Yurub oo nuqul kamid ah aan helnay ayaa muujinaysa in looga dalbaday midowga Afrika iyo midowga Yurub inay ka soo jawaabaan shuruudaha ku qoran warqadaasi oo kala ahaa in ciidamada AMISOM lagu bilaabo kala shaandhayn dowladda Soomaaliya loo daayo in la kala saaro ciidamadaasi oo kuwa howlgabka lagu celiyo wadamadii ay ka yimaadeen kuwa shaqayn karana taliye looga dhigo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed taliyahooda ayna hoos yimaadaan shuruudda labaadna waxay ahayd inay kala doortaan in taliye Soomaaliya loo magacaabo inuu hogaamiyo ciidamada AMISOM ama in toos looga hoosgeeyo taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed warqadan oo ka koobnayd laba bog ayaa waxaa sidoo kale lagu xusay in Soomaaliya ay ciidamada AMISOM u joogaan inay ka macaashaan balse aysan u joogin inay nabad ilaalin ka sameeyaan ama howlihii loo igmaday ay qabtaan waxaa sidoo kale lagu faray wadamadan qaybta ka ah ciidamada AMISOM inay warqada loo diray midowga Afrika iyo midowga Yurub ka qayb qaataan fududeyntooda iyadoona lagu wado in ciidamada AMISOM dhawaan ay dalka ka baxaan warqada ayaa waxaa ku xusnaa in Soomaaliya ay diyaar u tahay inay la shaqeydo ciidamada AMISOM haddii ay diyaar u yihiin inay al-shabaab wadanka ka xoreeyaan balse waxaa warqada lagu sheegay in ciidamada AMISOM sanadihii la soo dhaafay aysan wax howlgala oo al-shabaab lagula dagaalamayo wadanka ka sameyn taasi oo dhalisay in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo mas'uuliyiinta Soomaaliyeedba ay ka niyad jabaan la shaqeyntooda sidoo kale warqada ayaa lagu xusay in ciidamada AMISOM ay xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha gudaha Soomaaliya ka fuliyaan taasina waxa ay sheegeen mas'uuliyiinta Soomaaliyeed ee warqada ku saxiixnaa inay yaraan karto haddii taliye Soomaali ah looga dhigo taliye ciidamada AMISOM ama taliska ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed taliyahooda la hoosgeeyo taasi oo yareyn karta in ciidamada AMISOM ay fuliyaan howlgallo aan la ogeyn taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ama ninka Soomaaliga ee loo magacaabay waxayna taasi ka qayb qaadan kartaa inay yaraadaan xadgudubyadii ka dhanka ahaa xuquuqda aadanaha ee ciidamada AMISOM ay dadka shacabka ku leen jireen midowga Afrika iyo midowga Yurub warqada loo diray oo ku taariikhaysneed bishan aanu ku jirno ee Oktoobar 3 ayaa waxa ay gaartay midowga Yurub iyo midowga Afrika waxaana lagu xusay warqada in looga soo jawaabo inta aan la gaarin bisha nagu soo socota November 5 mas'uuliyiinta Soomaaliyeed ayaa ku dalbaday warqadaasi in si degdeg ah looga soo jawaabo shuruudahan ay go'aan rasmi ah soo saaraan midowga Afrika iyo midowga Yurub oo iyagu taakuleeya ciidamada AMISOM isla markaana iska kaashada bixinta kharashaadka ay qaataan iyadoo askari kasta uu qaato lacag dhan $1,000 in la kala cadeeyo ciidamada howlgabka isla markaana la kala shaandheeyo qaarka howlgabkana wadamadoodii lagu celiyo ayaa caqabad ku noqon karta qaar kamid ah wadamada Soomaaliya u soo diray ciidamada nabad ilaalinta sida Uganda
oo sanadihii la soo dhaafay kaliya u soo diraysa Soomaaliya ciidamada howlgabka ee wadankeeda aan ka howlgali karin si ay mushaar ugu qaataan Soomaaliya oo ay ciidamada Uganda ka howlgalaan. sidoo kale ciidamada AMISOM ayaa dhowr jeer lagu eedeeyay inaysan wax howlgala ka fulin gudaha dalka isla markaana ay diideen inay ka qayb qaataan howlgallada ciidamada dawladda Soomaaliyeed ka wadaan gobolada dalka qaar ee al-shabaab lagula dagaalamayo iyagoo si cadna ugu gacan sayray inay ka qayb qaataan, taas oo sababtay in taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo taliyaha ciidamada AMISOM uu soo kala dhex galo khilaaf hareeyay hawsha ciidamada oo ilaa iyo hadda ka dhex taagan xalna aan loo helin. intaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa warbixintan oo aad ka daawanayseen Volleyball News qaybta commentiga nagula wadaag aragtidaada. tan iyo kulanti dambe warbixintan lacayna intaan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa isma dhaafne waa dalkeena xora.